akoon iyo baaswiirna shaqadeeda ma ahayn waxaan rabaa ummadda inaan la jahwareerin oo u cadeeyo durdur waxaan aniga u ahaa yaa jabsan kara horta wax sidee loo jabsan karaa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa abaal media group waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan dhammaan daawadayaasha quruxda badan ee halkan naga daawanaya waxaan rabaa caawa inaan halkan oo u soo fadhiistay inaan halkan uga tacsiyeeyo walaalkay Xasan Toob iyo musiibadii durdur media ku dhacday durdur media runtii aniga waxaan ahaa nin halboolo u ahaa muddo ka shaqeynayay waxaan ka xumahay xaaladii iyo sidii wax u dhaceen Xasan Toob baa ku mahad celinayaa waxaa tahay qof bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa abaal media group waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan dhammaan daawadayaasha quruxda badan ee halkan naga daawanaya waxaan rabaa caawa inaan halkan oo u soo fadhiistay inaan halkan uga tacsiyeeyo walaalkay Xasan Toob iyo musiibadii durdur media ku dhacday durdur media runtii aniga waxaan ahaa nin halboolo u ahaa muddo ka shaqeynayay waxaan ka xumahay xaaladii iyo sidii wax u dhaceen Xasan Toob baa ku mahad celinayaa waxaa tahay qof micno badan wajiye badan leh aniga waa ku aqaan adigana waa taqaan ummadana way ku yaqaanaan ma fahanteed wax badan inaa sheego ma rabo wax badan inaa ka hadlo ma rabo xaaladeeda waa la ogyahay xaaladaada waa la ogyahay ummadda xaaladooda waa la ogyahay durdur media aniga wax dhibaato ma u geysan maxaan ahay horta anigii adiga maxaan ahayn Xasan adiga maxaa idheereed inaan ka hadlaa rabaa intaas Xasan Toob iyo aniga waxaan ahayn dad wada shaqeynaya muddo sanad ku dhow durdur media isbedel qurux badan ku soo kordhiyay alxamdulillaah adigana shaqadaas inaan awood u lahaadaa isiisa horta waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ka hadlo aniga waxaan durdur u ahaa durdur cameraman ma u ahayn editor ma u ahayn publisher uma ahayn akoon iyo baaswiirna shaqadeeda ma ahayn waxaan rabaa ummadda inaan la jahwareerin oo u cadeeyo durdur waxaan aniga u ahaa yaa jabsan kara horta wax sidee loo jabsan karaa intaas waa fahantaa umaleena haddaa daawanayso waa fahantay anigana waa ku fahansana cid walbo durdur ka tagto maxaa loogu dhigaa horta qofka waa shaqaysanaa dadaala gaaray horumar gaaraa ku dhahay sax maxaa u diidantaa brother shalay waxay ahayd Ismaaciil iyo asaysiteen waxay asaysiteen Abees Cali Baafo hiiba asaysiteen dad badan kugu fiirsada adoo ku dhagan brother waa u dul qaadan waay aniga intaan ka badan inaa dad agteeda ku sii dhibaataysan ma fahanti aniga waxaan ahay qof daacad ku la shaqeynay isbedel qurux badan kugu soo wajahmay dani markaa kugu soo biiraan laakiin maantay abaalkayga sidaana ka dhigtay kama xumi dad badan abaalkooda lagu dheelaa mid isdhayn ani Xasan Toob ka qaldan yihiin isdhahay ma fahanti walaalkay Abees Baafo markii la jukeenay inaa wax badan sheeg ma rabe wara dib u laabay dhaysa nidaamii qorshe kala jiro ani waa fahmi waay laakiin maanta wax walba fahmi ma fahanti horta aniga durdur media Xasan Toob aniga waa israaci jirnay waxaan wadana gaadiid magaalada tagi jirnay muuqaalaad soo duubi jirnay diiwaansho la socon jiray walaalkiis ah isaga editor ahaa isaga cameraman ahaa isaga computerkii hay aniga baawarka wadi jiray daroola ah sax waa israaci jirnay magaalada meel kasta ha taashinaato waa tagi jirnay sax yaa hari jiray diiwaansho la heli jiray asaga shaqeyn jiray ciwaanka liidadka anaga ka tashin jirnay sax oo u diri jirnay ciwaan qurux badan ciwaan diyaarsan shaqo qurux badan qaban jirnay laakiin dadka masaakiinta ah wax qurxoon ma lagu sameyn jiray ma fahanti ninkan waa abtidoon maanta wuxuu garabkayga u fadhiyay waa dareemi kartaa idinka anigana waa dareemi karaa bulshada idinna way dareemi kartaa
waxa ii gelisay magaalada inaan aniga jabsaday durdur media gmail-kayga waa lii sameeyay dad badan oo qubuura oo la xiriiray adiga aan la xiriirtay sheegtay in durdur aniga jabsaday waxa uu sheegay in gmail-kayga noocaas uu yahay waxa uu sheegay in xaalado badan ay jireen xasan toob waxa ku fikirtay nidaamiye intaas uu kula joogaa waxa duubi jirtay muuqaalo aniga aad uga xumahay maraba inaan inta ka sheego waxaan rabaa marka ugu horeyso haddana inaan ka hadlo xasan toob aniga waxa ii sheegtay durdur inaan ka mid ahaa ii hanjabtay horta hanjabaad ka hor xasan toob waxa ii sheegtay aniga inaan hadde maal igu bixinayso awoodo inaa iddisho ma fahanta gangiistara ku adeegsanaa dhahda maqlaysay maxaan joognay mid ka mid ah saldhigyada muqdisho immigrationka joogday waxaa sheegtay inaa aniga dilayso dhibaato ii geysan karto lacag badan YouTube ka shaqeysa tolaa leeyahay dadaa ka dhashay haddana dadaana daawanaa kuwaasoo noo dhexdhexaadin doona aniga adiga durdur waxaa ka tagay habeen waxaan duubnay muuqaal $1,000 oo tusma film soo gaarsiisay durdur media Allah ku barkeeyo baraad maanta ama umada waxa uu qabo ama waxa uu qaban adiga ku taala laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga wixii nafsiyan shakhsiyan dadaalkayga hawsheeda guusheeda meeshaas aniga ka tirsanaa mushaaraan ka qaadana intaas rabaa inaan ka hadlo wixii personalkaaga adiga ku taala adii ilaahaga iyo dadka kula shaqeeya inay taala ma fahanti umada waxaan u cadeynayaa mar kale in la soo wacay aniga horta wicitaankayga ka hor 6 saac aan baxay oo habeenimo sababta waa dareemi kartaa abtidoon waa uu maqnaa oo asna wuu baxay sababta u tagayna asaan weydiin doonaa ani abtidoon meel baa isku tagnay habeenkii oo dhan mana la soo wicin waa ka maqnaa maalintii mana la soo wicin habeenkii waxa la soo galiyay muuqaalo ay daawadeen dadka haddana daawanaya qaarkood intii daawatay way garanayaan nidaamyo durdur media ka tagay durdur media abtidoon ka tagay nidaamyo durdur oo saan ahaa haba ahaatee labadaas habeen aan ka maqnaa habeenkaas iyo habeenkii kale maalintii aniga ka maqan oo shaqeysanahay dadkan maalintii kale waxaa la soo wacay durduraa la jabsaday iyadoo la dhahay maxaa isku keenay bixitaankayga jabsiga waqti badan u dhaxay baraada waa shaqeysanays aniga waa ka tagay ma fahanti waxaan rabaa umada inaan u cadeeyo aniga inaan ahaan editor ahaan cameraman aniga xasan toob aan kala hari jirin YouTube-ka iyo passwordkiisa iyo publisher iyo wixii la dhigayeen hoolahaas aan qabanin hoolahay kala ka badnaa mashquul ba intaas ay ugu filneed ma heli karin waqti kale ma heli karin waqti aan kula sheekaysto dadka faniskayga ah oo aniga aan hadda jeclaa inaan la sheekaysto la hadlo because aad aan mashquul badnaa laakiin hadda waxa dareemayaa nafis fara badan farxad fara badan waan ka xumahay dhibaatada ku soo gaartay sidii ku soo gaartay walaalo waxa mar kale ku leeyahay nin walaalkay tahay wada shaqeyn iyo wanaag iyo dadaal naga dhaxaysay waa ka tagay markaa ku dhahay waxaan aniga aaminsanahay inaan YouTube-kaaga iyo passwordkiisa iyo sidii wax u dhaceen adiga ka dambeeyso ma fahanti baraada tartiib umada masaakiinta ha ka waalin dadka yaa laga waalin passwordkaaga waa taqaanaa waxaaga waa taqaanaa dad walba la kaasho si kasta ku samee nidaamii wuxuu ka sheegay hadaa isdheeysi sumcadaadu dila baraada ma dilay sumcadaada ma fahanti mana laga yaabo inaan wax ka sheego because aasha soo wadaag hal meel aan jiifanayna hal meel aan wada joognay hal meel aan ku shaqaysanayna dad hadaf iyo hami lahaa laakiin ceeb iyo sumcad xumo inaan ku soo hooyo marnaba laga yaabo si kasta la yeelo dad badan ay sheegeen dhaqaale fiican ay sheegeen saas sheegaa leeyahay xitaa been abuur sameeyaa leeyahay laakiin ma laga yaabo mana iga suurtoobayso marnaba ina adiga sumcadaada ku dheelo taada hadaa ku dheelateeda ku dheelaa
ceebo badan aan ku asturay ayaa xasuustaa intana ma ka sheegay ma fahanti ninkii ag fadhiyo waa Abdidoon intaan u guda gelin waxaan rabaa inaan mawduucyo badan halkan ka sheego waxaan u sii guda galayaa qodobka labaad waxaan raali gelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada iyo beenta loo sheegay nidaamii muxuu aamusnaa iyo dadka leeyihiin waxaan jeclahay aniga hadii dhibaato la soo gaarsiiyo ama eedeyn la sameeyo inaan si degan u fikiro maskax degan ayaa wax badan qaban karta Xasan Toob waa soo dacweysay si degdeg leh waxa imaada saldhiga waa bari waxaana loo soo wareejiyay howlwadaag waxaana loo sheegay inaan wax warbixin la bixin karin ilaa ay dhibaatadan laga xalinayo waxa la hadashay CK oo warbixinad badan ah u sheegtay ha ahadan kuwa runa ha ahadan kuwa beena ma fahanti dad badan oo wareysay si anigana ma hadli kartid aleeyahay maanta halkan waxa u soo fadhiistay intaas waa inaan hadli karo ummadana wax u sheegi karo la'aanta wax ma qabsan kartid oo aaminsan yahay Xasan Toob dad badan asaas oo dhihi jiray laakiin la'aanta in wax la qabsan karo adigana wax lagu la qaban jiray ogow ummadda Soomaaliyeed marka la eegto waxa leeyahay waxaan bari ka noqonayaa jabsata in aan jabsaday durdur media in aan dhibaato u geystay mana laga yaabo inaan ku farxo arimahaas waa ka muraal dilaacanaya waa ka dhibaatoonaya xaaladaas iyo xaalado kale oo ka adag hadii soo wajahdana walaalkay waa hadaa u tagi waayo ama wax ka qaban waayo xitaa waxaan leeyahay waa ka xumahay dad badan ay soo wacay kuwaas oo ii sheegeen in Xasan Toob uu iraadinayay baadigoobay dili rabo waalidkay ayaa wacday nidaamii xal xabsi uu saxdaa dhahday saldhiga ku xiray nus saac ta ma xirnaa laakiin balanti waa adkay ani qof balan leh ahli leh nidaam laha ah dadka waxa u sheegtaa in durdur media iyo shaqaaleeda quraan la saaro ilaahay anagu anfaco quraankaasna la saaro ilaahay anagu anfaco alxamdulillah leenahay sharci wax walba diyaar ma shareysanayo waxyaabo badan ma shareysanayo laakiin alxamdulillah leeyahay qofka wuxuu aamino ayuu noqonayaa waxa aaminsanahay wanaag in aanu sameynaysin ma fahanti wanaagaas ayaa aaminsanahay ilaahay noo aqbalo anakana waxaan ku rajeynaynaa faataxa aan u mareynaa walaalkeen Xasan Toob ummadda Soomaaliyeed ay taawanayso cidii ka dambeysay in YouTube kaas la jabsaday waxaan u mareynaa faataxo inta ila joogto dadka iyo Abdidoon iyo aniga waxaan jeclaanahay inaan faataxaan mar wada aqrino si ilaahay ugu soo celiyo dhibaatadiisu u gaarin walaalkay dadoo ka biisha sax waay waa ka xumaa walaa aniga xitaa mushaaraka qaadi jiray meeshaas laakiin waan ka tagay musiibadaasna kadib ku qabsatay ha igu eedeen ilaaha kula baryayna ilaaha kula karab galo ilaaha ku soo celiyo baraada waxaan ku leeyahay guuleyso aniga nafsadeeda inta ku bixiso la sheegayo ilaaha ka weyn oo amaan iyo nabadgeliyo iyo intaan bay soo leekaysi alxamdulillah alayhi faataxada umarna marka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay walaalkay faataxadan inuu ilaahay ku aqbalo durdur media ilaahay dib uu ku soo celiyo haduu ku soo noqon weydana waxaan diyaar ku lanahay markaste inaan garabkaaga taagnaano adigana iyo dhamaan dadkana daawanayo waxaan jeclaan lahayd adiga i daawanayo inaan garabkiisa taagnaato Xasan Toob ani wanaag badan ani sharaf badan shaqo oo naga wada dhaxaysay laakiin maantay in shaqaysanaya ah guuleyso ana waa guuleysanaya brother halkan waa Abaal Media Group channelkan aniga iyo Abdidoon ee ku midownay waxaan jeclaan lahayn in daawadayaasha quruxda badan subscribe iyo caawin inagu caawiyaan in subscribe inoo saaraan halkan inaga la socon doonaan waxyaabo badan ma halkan uga soo gudbin doono haduu eebba karaali noqdo
taageerayaasheeda walaalada muslimiinta leh waxaa mar kale sheegaya inaan dambi iyo dhibaato ku lahayn musiibadii ku dhacday Durdur Media. Allah kuu soo celiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.